dhanka adeeg bixintiina garsoorka maxkamadda guud ama gobolladii ha ahaato ama degmooyin ha ahaato waxaa jira iyaduna cabashooyin kala duwan oo dadka qaar ay soo jeedeen dhanka qoysaska oo kale waxyaabo kala duwan oo dhanka qoyska la isku haystaa nin iyo maartay xaaskiisii dad wada dhashay oo eheliya qaraabo ah hanti baa la isku haysan karaa marka howlahaas oo kale maxkamadda guud go'aanada noocaas oo kale qaabkee tabashooyinka ka jira aad u xalisaan awood garsoorkiinu intuu gaarsiisan yahay marka nidaamka sharciga ee maxkamadaha iyo hay'adda garsoorka u yaala loo yimaado halka shay ay isku haystaan mid u qaybsamaya ma halbadooda dhinac oo ay ku wada qancayaan waxa ku qasbanaya marka anagu in halkii shay iyo cadaymihii ay dhinacyadu wateen iyo doodihii ay dhinacyadu keensadeen anagoo miisaamayna in la yiraahdo ama dhinaca baabaala ama dhinaca taabaale hadda ka hor isbedelku inta aanu dhalanin ka hor ka dal ahaan iyo ka deegaan ahaanba meelaha diiradda la saari jiray adduunka iyo hay'adaha caalamiga iyo shacabkeenuba ay diiradda saari jireen hay'adaheena marka ay ka hadlayeen garsoorka gaar ahaan waxyaaba ugu horeeya ee diiradda la saari jiray waxaa ka mid ahaa madax bannaanida habay ugu horeeya noo qabsano waxay ahayd si dhibada aan ugu tagno madax bannaanida hay'adda garsoorka in dib u habeyn lagu sameeyo bayaanka aasaaska maxkamadaha deegaanka oo sal u ah madax bannaanida ay hay'addan leedahay kuna salaysa shaqooyinkeeda ee annaga ka garsoor ahaan waajibkana saaran uu yahay adeega aan bixinayno ee macaamiisha aan siinayno inaan ku salayno annaga ku xisaabtamayna kuna qotominayna kaliya damiirkeena iyo shuruucda wadanka waxayna farayaan waxa xoog aan saaranay oo kale ka qaybgelinta kor u qaadida tayada iyo tirada ay dumarkeenu ku leeyihiin adeeg bixinta hay'adda garsoorka labadaba tayeynta ama kor u qaadida tirada iyo tayada cududda shaqaalaha ee hay'adda garsoorka ay ku qotanto waxyaabo wanaagsan way nooga qabsoomeen qodobada dastuurkiyo qadariya sharciga qiimaha leedahay qofka soo bogsoonooy qodobada dastuurkiyo qadariya sharciga qiimaha leedahay qofka soo bogsoonooy kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba khiyaarta qiimaha iyo qadarinta leh hawada nagala socotay waa mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee sharciga iyo bulshada oo toddobaadkan hadduu eebbe idmo si kooban aan ugu eegi doono dib u habeyntii sanadadii u dambeysay lagu sameeyey hay-adaha garsoorka dowladdeegaanka soomaalida maxay ku soo kordhiyeen tayeynta hanaanka adeegbixinta bulshaweynta deegaanka gaar ahaan waxaan si kooban ugu milicsan doonaa casriyeynta iyo tayeynta hanaanka adeegbixinta ee maxkamadda guud ee dowladdeegaanka soomaalida waxaanan qodobo muhiim ah oo dhanka garsoorka iyo dib u habeynta aanu kala yeelanay howlo shaqo oo aanu dhowaano ku booqanay maxkamadda guud ee dowladdeegaanka soomaalida gudoomiye ku-xigeenka maxkamaddaasi mudane cabdikariin axmed maxamuud guulaha ugu muhiimsan ee noo qabsoomay xilligii ugu dambeeyey isbedeladii aan soo dhaafnay oo laga kasoo bilaabmaya 2011 ilaa 2018 hay'adda garsoorka sida aad ka wada warqabno waxay ka mid tahay saddexda tiir ee ay dowladii ku qotanto ama saddexda dhandhaar ee dheriga dowladda uu saaran yahay ayay ka mid tahay waa hay'adda garsoorka hay'adda fulinta iyo hay'adda sharci dejinta oo baarlamaanka ama wakiilada shacabka ah sida marka aanu leenahay hadda ka hor isbedelku inta aanu dhalanin ka hor ka dal ahaan iyo ka deegaan ahaanba meelaha diiradda la saari jiray adduunka iyo hay'adaha caalamiga iyo shacabkeenuba ay diiradda saari jireen hay'adaheena marka ay ka hadlayeen garsoorka gaar ahaan waxyaaba ugu muhiimsan ama ugu horeeya ee diiradda la saari jiray waxaa ka mid ahaa madax bannaanida sababtoo ah saddexdan hay-adood ee ay dowladda ka kooban tahay waa saddex loogu talagalay inay dheeli tiraan geedi socodka dowladeed ama nidaamka dowladeed inay dheeli tiraan taa macnaheedu waxa weeyaan mid inay mid ku tiirsanaato maaha midna inay mid ka hooseyso maaha midna inay mid ku ladhnaato ma aha waa inay kala madax bannaanaadaan waa inay sannaadaan shaqooyinkooda waa inay u wada madax bannaanaadaan iyagoo madax bannaanida iyo shaqooyinkooda iyo saddexdaa tiir ee ay kala yihiin ay sidooda tahay haddana saddexdooda marka la isku keeno waa isku dowlad
dhan kale markaan ka eegno midna mid kama maarmayso oo wada shaqayntii iyo taageerada waa halkeedii iyadoo xadadkii uu u xeeriyey xeerarka caalamiga iyo xeerarka dalka iyo kuwa deegaanka oo dastuurka ugu horeeya ay sidee tahay marka waxyaabihii noogu qabsoomay ee ugu horeeyey waxaa ka mid ahaa kow inaan dhidibada u taagno madax bannaanida hay-adda garsoorka oo ay la sinaato labada hay-adood ee kale oo aanay ku dhex milminba taa marka aynu leenahay waxaa ugu horeeya xeerarka ay ku qotonto hay-adda garsoorka xeerarka ay ku qotontona waxaa ugu horeeya oo kow ka ah bayaanada laga soo dhiraandhiriyo dastuurka deegaankeena Soomaaliyeed iyo dastuurka dalka labadaba marka waxyaabihii ugu horeeyay noo qabsano waxay ahayd si dhidibada aan ugu tagno madax bannaanida hay-adda garsoorka in dib u haweyn lagu sameeyo bayaanka aas-aaska maxkamadaha deegaanka oo sal u ah madax bannaanida ay hay-addani leedahay kuna salaysa shaqooyinkeeda bayaankaas lambarkiisu waa 206 waa 2016 qodobkiisa 6 qodobkiisa 13 haddii aynu fiirino si cad waxa u dhigayaan hay-adda garsoorku inay ka madax bannaan tahay hay-ad kasta oo dowladeed oo kale faragelin kasta oo dowladeed oo kale ama shacab oo kale intaba marka qodobka koowaad ee xoogga la saaray isbedelku markii uu dhacay kadib waxay ahayd in madax bannaanida hay-adda garsoorka la daayo oo faraha looga qaado markaas iman kartaa kalsoonida ay ku qabaan labada dhinac ee isdacweynaya sababta waxa isdacweyn karaya shacab dhan shacab ah iyo dhinaca dowladda waa inay dhanka shacabka iyo dhinaca dowladda waa inay helaan hay-ad u dhaxayso oo aan ku tiirsanin cid kale sababta madax bannaanida xoogga loo saarayna wata marka qodobka ugu muhiimsan ee noo qabsamay xilligii isbedelka aan bilaabayna waxay ahayd in dhidibada aanu taagno madax bannaanida hay-adda garsoorka oo xeerarka ugu horeeya ee arrintaa dhigaya aanu dib u habeynay dabcan dal ahaana waa arrintii koowaad ee xoogga la saaray iyaduna waxaa noogu xigtay iyaduna in aanu sameyno howlaha isbedelka ah waxaa iyaduna tiirka la saaray markii madax bannaanida la sameeyey waxaa iyaduna tiirka la saaray oo xoogga la saaray howlaha isbedelka ee hay-adaha garsoorka howlaha isbedelka ee hay-adaha garsoorka marka aanu leenahay ka dal ahaan iyo ka deegaan ahaanba si adeega ay hay-adaha dowladda shacabka ama macaamiishooda ay u filinayaan si uu u noqdo mid dheelitiran oo dhammaystiran si uu u noqdo marka qodobka koowaad wuxuu ahaa madax bannaanida qodobada kale waxay ahaayeen si guud marka la soo geeyo howlaha isbedelada ama reformka loo yaqaano howlaha isbedelada dal ahaan waxay ka kooban yihiin ilaa 8 qodob ilaa 9 qodob oo maxkamadaha dalka oo dhan laga midaysan yahay waxaa ka mid ahayd kow cudurka shaqaalaha ee hay-adda garsoorka ay ku qodanto tayadeeda iyo tira ahaanba in la kobciyo koobay ahayd 2 la xisaabtanka iyo madax bannaanida garsoorka waa labada tiir ee muhiima in la isku dheelitiro u baahan madax bannaanida garsoorka iyo la xisaabtanka labaduba dhanna waanu madax bannaanahay oo hay-adu kuma tiirsanin dhanna la xisaabtanka shacabka iyo la xisaabtanka kale kama noqonin amaba kama awoodnin waa qodobka labaad ee howlahan isbedelku ay xoogga saarayeen qodobka saddexaad ee howlahan isbedelku ay xoogga saarayeen iyadana waxaa ka mid ahayd in adeega hay-adda garsoorku ay bixiso lagu saleeyo aaladda casriga ah si adeeg degdeg siima ah loo helo si loo helo adeeg tayo leh iyo si xogta ama macluumaadka aan adeega aan bixin oo ku salaysan yahay aan u kaydino qodobka saddexaad ee xoogga in la saaro loo baahna wuxuu ahaa in adeega macaamiisha aan siinayno aanu ku salayno muxuu ahaa aaladda casriga ah ama ICT-ga qaybta loo yaqaano waa qodobka saddexaad ee nidaamka reformku xoogga saarayay nidaamka reformku waxa uu xoogga saarayay oo kale ballaarinta amaba fidinta hay-adda garsoorka oo macnaheedu yahay in maxkamaduhu goobta ay shacabku ku badan yihiin ama goobta ay maxkamaddu ka jirto halka ka durugsan ee shacabka ku badan yihiin in la gaarsiiyo iyadoo xeerarka la raacayo tan marka waxaa loo yaqaanay fidinta ama ballaarinta adeega maxkamadaha accessibility waxa loo yaqaano qodobka kale ee xoogga lagu saarayay nidaamkan isbedelka ama reformka ee dalka iyo deegaankuba ay wadeen ayuu ka mid ahaa waxaa xoogga aanu saaranay oo kale ka qaybgelinta kor u qaadida tayada iyo tirada ay dumarkeenu ku leeyihiin adeeg bixinta hay-adda garsoorka labadaba iyaduna nidaam xoogga aanu anagu saaranay oo kale ayuu ahaa kaasina waa qodobka shanaad ee noo soo raacayay qodobka kale ee noo soo raacayay isaguna waxa uu ahaa in la sii joogteeyo
had iyo jeerba kormeerada la sameeyo, dabagalada la sameeyo, nidaamka ka warhaynta, isku xidhka bulshada iyo hay-adda garsoorka, wada shaqaynta amaba xoojinta macaamiishayada kale, gaar ahaan bahwadaagtayada kale, dowladdu ay ka mid tahay, shacabku ay ka mid yihiin, iyo annaga xiriirka naga dhexeeya kale inaan sii xoojino iyaduna hal qodob oo muhiima oo aan xooga saarnay muddadii isbeddelkan reformka ahaanu wadnay ayay ka mid ahayd. qodobada ugu muhiimsan ee nidaamka reformka aan wadnay kuwaas ayay ka mid ahayn ciwaan marka aynu soo qaadano. haddii aan u nimaadno arrimaha maxaa nooga qabsamay marka, kow arrinta aynu ka dhawaajinay ee ahayd tayeynta ama kor u qaadidda tirada iyo tayada cududda shaqaalaha ee hay-adda garsoorka ay ku qotanto waxyaaba wanaagsan way nooga qabsameen. waxaan odhan karnaa kow muddadii aanu soo dhaafnay dad tiradoodu ay gaadhayso ilaa 8,000 ayaa loo qabtay tababare heerarkooda uu kala duwan yahay. tababaradaas waxay ku saabsan yihiin waxyaabaha gaaldaloolooyinka ka soo baxa xilliyada kormeerka aanu sameyno ee maxkamadaha gobolada iyo maxkamadaha degmooyinkeena ama kuwa maamul magaalooyinkeena iyo heer deegaanba marka aanu kormeerka ku sameyno gaaldaloolooyinka nooga soo baxa ayaa tababaradaas inta badan lagu habka go-aan qorista tababara badan ayaanu ka siinay iyadoo ay ku saleynayno gashiyada nooga soo baxay xilliyada aan kormeerka sameynay. kow laba miisaamida cadeymaha inta badan miisaamida cadeymaha waa arrin daruuriya xagga shaqadayda marka loo eego, waayo go-aanka ay maxkamadu gaadhayso ama go-aanka ay garsoorku gaadhayaan waxay ku saleeyaan cadeymaha ay qaadanayaan. cadeymahaasi heer loogu talagalay bay leeyihiin. habka miisaamida marka cadeymaha kow iyaduna qayb muhiima oo aan tababarka ku saleynay ayay ahayd. qodobka saddexaad ee tababarada ku saabsanayeen xilligii isbeddelka aanu ku jirnay waxay ahaayeen fahanka ay garsoorka iyagu ka haystaan qodobada sharci ama dacwadaha, fahanka ay ka haystaan inay isku mid ahaadaan. ugu yaraan deegaankeena garsoorka ka shaqeeya inuu isku hal hadaf ka haysto, qodob sharci macnihiisa inuu isku hal hadaf ka haysto, ka dal ahaana qodob sharci garsoorka dalka ka jira inay isku hal hadaf ka haystaan, iyadana hal qodob oo tiirah oo ka mid ah tababarada aan siinay muddooyinka aan soo dhaafnay garsoorkeena iyo shaqaalaheena kaleba ay ahayd. oo xeerka dambiilaha ka mid ah intan garsoorayaal deegaamada ka wada shaqeeya ama gobolladeena ka wada shaqeeya ama maxkamadaha federaalka iyo deegaamada kale ama kaleelada kale ka wada shaqeeya inayna ku kala duwanaanin baa loogu talagalay. macnuhu wuxuu yahay tusaale ahaan ruuxa maanta ugu horeysa ee fal tuuganimo geysta, falka tuuganimada geysta macnaheedu waa maxay, ciqaabta uu helaya macnaheedu waa maxay, imise sano ayuu xidhnaanayaa, maxaa lagu ganaaxayaa. arrintaasi haddii gobolka Shabeelle garsooruhu uu ku qaado oo ku dhageysto, haddii gobolka Faafaneed uu ku dhageysto, haddii maxkamadda guud ee dowladda deegaanka uu ku dhageysto, haddii maxkamadda guud ee deegaanka Tigreega uu ku dhageysto, ama deegaanka Caanfarta uu ku dhageysto, ama deegaanka ama xaarada uu ku dhageysto, waxaa loogu talagalay maadaama qodobkaasi uu baarlamaanka dalka una inoo ansixiyay in isku fikirka isku mid ama isku dhow in laga haysto. annagoo taa ka duulayna marka garsoorka deegaankeena 12 gobol iyo 9 degmo iyo 6 maamul magaalo intii hore weeyaane iyaguna inay fikir isku mid ka haystaan dadaal dheer ayaan ka geysanay oo arrinta tababarada aan ku bixinay ayay ahayd. marka walaal tababarada aan bixin jirnay muddooyinkan ugu dambeeyay kuwaas ayay ahaayeen oo xooga saaray xagga tayada. haddii aan u nimaadno tababaradii tayeynta adeega garsoorka ah ayaanu bixinay natiijada aanu ka helnay kow waxaanu ka helnay in sidii aan horeba u sheegay fikirada sharci ee ay garsoorka iyagu haystaan inay isku dhow yihiin. go'aamada hal qodob ku saabsan ama dacwada isku mid ah, hal dacwada oo isku mid ah oo 12 gobol ka dhacday ama 5 gobol ka dhacday waa inay sanaadaan, ciqaabtooda waa in isku dhawaato, hab qoraalkooda waa isku dhawaado, habka miisaamida cadeymaha waa isku dhawaato. taas isbedel wanaagsan baanu ka aragnay oo waa habka cabirka ee aan ka qaadan karno. isbedelka waxyaabaha kale ee noo tilmaami kara inaan tayeynta wax ka bedelo garsoorka isbedelka kale ama calaamada kale ee noo tilmaami karta ama bartilmaameedka kale aan ka duuli karna isagana waxa weeye galalka inooga yimaada maxkamadaheena darajada koobaad ee heer gobol yimaada racfaan ahaan marka u yimaadaan inta badan waa lagu raacaa oo go'aankii ay gaadhay maxkamadda degmadu waa loo ansixiyaa. taas waxaa ku tilmaamaysaa marka go'aanka garsoorka heer gobol jooga iyo garsoorka heer degmo jooga galkan hadday fikir isku mid ah ka qaataan in aanay ku kala duwanayn ama inay halkaas fahan isku mid ah ay ka haystaan ayaa suuragala. darajada saddexaad haddana marka loo yimaado heer deegaan badi galalkaasu madaniga ciqaab ha noqdaan
waa ay helaan go-aan lamid kii oo waa la ansixiya racfaanadii soo yimaada marka hadba haddii uu bato ansixinta go-aamada racfaanku waxay tilmaamaysaa haba kala sarreeyaane in garsoorayaasha darajooyinka kala duwan joogayay inay fikir ama fahan guud oo sumadaha ka qaataan ka deegaan ahaana go-aamada naga baxa ee heer federaal loo qabto dib u eegista iyagana waan ku xisaabtanaa waan fiirinaa in la ansixiyo go-aankii ay deegaanka Soomaalidu gaadhay ama go-aanka gobolku gaadhay heer deegaan inuu ansixiyo ama go-aanka degmadu gaadhay heer gobol inuu ansixiyo waa hal tilmaano oo tilmaan u ah in garsoorka fikir isku mid ah haystaan haddii wax laga bedelana ama haddii la nasakhana waa hal tilmaana oo u baahan sababta loo nasakhay garsoorka degmada go-aankan kolkii ugu horreysay gaadhay intaa warba u baahan yahay la yidhaahdo oo la abaaro marka waxyaabaha nooga qabsamay bay ka mid ahay mabaadi'da guud ee maxkamadda guud waxa weeyaan kow in qanaaca macaamiisheeda aanu kor u qaadno adeega garsoor ee macaamiishayadu ay naga helayaan maxkamadda guud oo keliya maaha hay-adda garsoor ee deegaankeenna macaamiisheenu adeega ay ka helayaan waa inaan ku dadaalno qiimahay doonto ha nagu qaadatee waa inaan ku dadaalno inaan ka dhigno kuwa ay ku qancaan macaamiisha naga ama baxaysa annaga had iyo jeer marka cid kasta oo ama su-aal naga qabtaa ama cabasho naga qabtaa haddii go-aanka uu isagu u xukumayna dee kaasi inta badan uu iska faraxsan yahay uu iska taga laakiin ka laga xukumay aan qanacsanayn waxaanu ku dadaalnaa inaan u bayaamino sababta aan go-aanka ku gaadhnay ama lagaga guuldareystay oo dhankan tahay dan ruuxi waa inuu ku garaabo marka tiirka koowaad aan xoogga saarna waxa weeyaan inaan kor u qaadno qanaaca ama heerka qanaaca macaamiishadooda waa kow laba tiirarkayaga waxa weeyaan adeega garsoor ee ay hay-adda garsoorku hayso mid ay keliya ka mara dhalin karta maaha mid kaalinta shacabka aan uga baahannahay inay kasoo baxaan weeye kaalinta kale ee dowladda inaan uga baahannahay inay iyaguna kasoo baxaan weeye kaalinta kale ee dowladda marka aan leenahay waxaan ujeedaa wada shaqayntayada xidhiirkayaga naga dhexeeya iyadoo ay sidooda yihiin madax banaanidii iyo xadkii dastuurka iyo xeerar kale ay noo biyaamiyeen marka xidhiirka naga dhexeeya macaamiishayada amaba shacabkeena iyo bahwadaagtayada kale ee dowladda iyo bahwadaagta aan dowladda ahayn iyadana inaan sii xoojino halka wanaagsan oo marayna aan kasii durkano oo way arkaan adeega anagu aan hayno mid iyagu ay kaalin ku leeyihiin mid iyaga natiijo u keenaya iyadana waa halka tiir ee muhiima ee loo baahan yahay qodobka saddexaad tiirka noo ah waxa weeyaan tallaabo kasta oo aan qaadayno inay ku qodanto qodob sharci inay ku qodanto sababtoo ah ama cidda maamulka maxkamadaha ugu sarreysa ama garsoorayaasha gobolada degmooyinka hiir deegaan ha noqoto awood aan xeer si cad u dhigin oo aan leenahay ma jirto marka arrin kasta oo aan qabanayno waa inay ku qotanto sharciga dalka ama sharciga deegaanka iyo kuwa golaheennu ay inoo ansixiyeen marka tallaabo kasta oo aan qabanayno waa inaan sharciga ku qotanno taasina qayb weyn ba ka qaadataa kasbashada kalsoonida amaba waxaan hore u idhi kobcinta qanaaca macaamiishada qayb weyn ayay ka qaadataa sababtoo ah anagu awood kale ma lihi oon qodobka iyo sharciga aan ahayn marka tiirka kale ee noo qasooma iyadana waxa weeyaan in aan hirgelino ku dhaqanka iyo sarreynta sharciga waa tiirka saddexaad ee maxkamadayada iyo hay-adaha garsoorka iyaguba ay ku qotamaan iyaguna weeyaan ka kale tiirka kale aan ku qotanno hay-adaha garsoorka maxkamadda guud ilaa degmooyinka tiirka kale ay ku qotamaan waxa weeyaan inaan ilaalino dhowridda xuquuqda bani aadamaha oo xeerarkeenu ansixiyeen xeerarka caalamiga ansixiyeen xeerarka dalka iyo ansixiyeen iyo kuwa deegaankooda sababtoo inta badan waxaa la yidhaahdaa hay-adda garsoorku waa waardiga ilaaliya xuquuqaha aadamaha sababtoo ah hadday cida cabanayso cidday la tagtahay waa garsoorkii haddii dowlad laga cabanayo cidda loo tagaa waa garsoorka haddii shacab laga cabanayo cidda loo tagaa waa garsoorkii marka inaanu iyadana ku dhiirino ama aanu ku dabagalno ama aanu xoojinno sidii aanu una ilaalin lahayn uguna dhaqmi lahayn ilaalinta xuquuqda aadamaha iyaduna waa hal tiir oo ku qotonto taasina waxay suurageli kartaa keliya marka adeegayaga iyo tallaabooyinkayaga iyo go-aamadayada aanu ku salayno shuruucda dalka iyo deegaanka iyo tiirar kalena way jiraan nidaamka casriyeedka hadday dhawaan hirgeliseen si kooban iyo waxqabadyadaas iyo waxyaabaha ay soo kordhiyeen adeegii waa su-aal muhiima oo ku mahadsan tahay inaad walaal soo bandhigto su-aashaas sida aan hore soo sheegnay howlaha isbedelka ee dal ahaan laga wado deegaan ahaanna laga wado waxa weeyaan in adeega dowladdu ay bixinayso si guud lagu saleeyo adeegsiga aaladda casriga ah
si adeega dowladda aynu bixinayno si guud uu degdeg simana u noqdo mid tayalana u noqdo xog kaydin fiicanna loo helo saddexda tiir iyadoo laga duulayo aaladda casriga waa muhiim xaggayga markaan usoo laabano adeega hay-adda garsoorka ay bixiso waa inaan ku qotoonsiino ama waa inaan ku dhidibno ama waa inaan sal uga dhigno adeegsiga aaladda casriga ah deegaankeenu waa ballaaran yahay maasha allah alxamdulilah waxaanu leenahay ilaa 100 degmo in ku dhow imika tobaneeyo maamul magaalo dhowr iyo 10 gobol xarunta deegaanka intaasiba way ka durugsan yihiin ama waa ay ka fog yihiin adeega marka intaas ay maxkamadda guud uga baahan yihiin waxaa muhiim ah inaan ku salayno aaladda casriga ah taa anagoo ka duulayna marka muddadii imika isbedel ku dhacay kadib waxyaabo wanaagsan way noo qabsoomeen kow waxaa noo qabsoomay in aanu si cusub aan u furno nidaamka muuqaal aragga oo u dhaxayn doona ama u dhaxeeyaba maxkamadda heer federaal ee Addis Ababa ama Dirdhaba uu yahay fadhigeedu iyo maxkamaddeena guud taa macnaheedu waxa weeyaan cid go'aamada halkan laga gaadhay aan ku qancina hadday rabto inay tagto Addis Ababa video conference ama nidaamka loo yaqaano maqal iyo muuqaal way isticmaali karaan iyagoo joojiga jooga oo xafiiska iyagan jooga ballanta oo halka ka qabsada garsoorayaasha Addis Ababa fadhiya wuu la xiriiri karaa taasi waxay ka daweynaysaa waqtigii uu isticmaalayay kharashkii ka baxayay transportkii ka baxayay soo socod way ka daweynaysaa marka nidaamkaas waa noo qabsoomay oo imika waa aanu kaga shaqeey waa uu ka shaqo galay maxkamaddeena guud kaliya waxaa loo baahan yahay ruuxa ballan leh ballantaasaan leeyahay inuu yidhaahdo qalabkiisi loo diyaariyo maalintaa loo sii diyaariyo dan halka uu kala xidhiidho waa hal shay oo noo qabsoomay nidaamka kale ee noo qabsoomay nidaamkii xilligii isbedelku ka dambeeyay waxa weeyaan habka xog isweydaarsiga ama macluumaad isweydaarsiga ama warbixin isweydaarsiga naga dhexeeya gobolada iyo degmooyinkeena waxaa kale oo sanadkan aan ku guda jirnaa in dhowr meelood oo kale nidaamkan maqal iyo muuqaal ee isku xidhaya heer deegaan iyo heer federaal inaan goboleedana ka samayno dhowr gobol ilaa 5 gobol insha Allah haddii aan ka dhigo inaan ka samayno annagoo awoodayda dhaqaale ku xisaabtamayna annagoo ku xisaabtamayna bahwadaagteeda kale gaar ahaan deeq bixiyayaasha oo dhowr hay'adood aan xiriir fiican la leenahay oo imika hawshaas ay noo socoto inaan dhowr meelood ka samayno iyadana adeegga loo yaqaano maqal iyo muuqaal oo gobolada tusaale ahaan ruuxa goday jooga inaanu jijiga imanin raacfaan dartii inaanu jijiga oo iman isagoo goday jooga ballanta oo qabsado garsoorkan heer deegaan la ogeysiiyo dan isagoo halkaa jooga nidaamka maqal iyo muuqaalka loo yaqaano inuu isticmaalo iyadana waan ku tala jirnaa oo dhowr gobol inaan ka samayno ayaan ku tala jirnaa waxaa intaa noo dheer annagoo bahwadaagteeda deeq bixiyaasha la xidhiidhayna waxaan rabnaa sanadkan haddii alla yidhaahdo in ugu yaraan 2 goobood oo ay ku nool yihiin dadka qaxootiyada ah iyo dadka magangelya raadista ah in iyagana adeegaasoo kale aan ka samayno hawshaasi boqolkiiba 65 way noo qabsantay oo qalabkii hawsha aanu adeegsan lahayn way noo keeneen deeq bixiyaashaydii kaliya waxaa noo haray installationka wixii la oran jiray khadka internetka iyo waxyaabahaas ayaa noo haray taana waxaanu kala shaqaynaynaa Ethio Telecom iyo maxkamadda guud ee heer federaal iyo wasaaradda teknolojiyadda ee heer qaran iyo hay-adaha saaxiibadayada ah ama bahwadaagta aan nahay baan kala shaqaynaa marka adeegaas isaguna meel fiican ayuu noo maraya intaa waxaa noo dheer maxkamadaheena 1991 ilaa 94 xilligii la aasaasay ilaa maanta oon 2018 ku jirno waa muddo maybe 30 sano kor u dhaafaysa go'aamada aan gaadhno hadda ka hor waxay ku salaysnaan jireen iyagoo qoraala oo saxiixan oo hard copy loo yaqaano oo taaban karayso xaashida iyo go'aankaba aad arki karayso taabanna karayso ama aad qaadanba karayso ayay inoo kaydsanaan jireen oo maxkamadda guud qaybteeda xusuus dhowrka ay ku kaydsanaan jireen muddo dhowr ilaa 10 sano laga bilaabo 1991 saan filayo ilaa 2017 ama ilaa 2016 faylasha aan go'aaminay ee maxkamadda guud yaallay iskaan baan ka qaadnay marka si aanay u lumin iskaanka markaan ka qaadnay hal kombiyuutar kaliya kuma saf garayso sharaxan mas'uuliyiintu xafiiskooda kombiyuutarada yaalla way ku shuban karaan arkiibyada kombiyuutarada noo yaallana waa ku shuban karnaa taas waxay ka duwan tahay hadduu mid xumaado ama hadduu mid dhibaato soo gaadho inaan la waayin marka tanna waa qalabka waa adeegga kale ee aan ku salaynay casriyeynta iyo kaydinta xafidinta dokumentiyada oo waa adeegyada casriga ah ee sal noo siinaya inaynu arrimaha aan uga fog joognano sababtoo ah hadduu hal fayl lumo ka daba tag ma laha ka hortag mooyaane waxaa qorshaha noogu jira oo dhowaan aan rabnaa inaan gudagalnana ugu yaraan soo rakibada qalabka loo yaqaano maxkamadaha casriga ah loo yaqaano maxkamadaha casriga macnaheedu waxa weeyaan garsoorayaashu iyagoo fadhiya go'aanka ay jeedinayaan
qalab baa duubaya, qalabkaasi Soomaali buu u bedelaya, halkaa ay fadhiyaan iyagoo fadhiya ayaa la printer garayni, 90% inuu sax noqdaan laga yaabaa, 10% unba iyagu naqtiin ku samaynayo saxayaan, 10% markay saxaan dadka halkaa ay fadhiyaan baa lagu siinayaa. waqtigii go-aanka la soo qori jiray 4 ama 5 ama 6 cisho ahayd ayay taasi soo koobisaa. taasi si aan u hirgelino insha Allah sanadkan imika aan ku jirno waqtiga kooban ee inoo hadhay qalabkii arrintan noo suuro gelin lahaa inaanu soo gadano, ciddii arrintan rakib lahayd inaan la dhiil garayno oon arrinta kala xiriirno ayaan haddii alla ka dhigo ku tala jirnaa. xilliga dhow kalfadhiga baarlamaanka inta ka horeysa ama sanadku intaan gabagaboobina hawshaasi meel fiican inay noo gaadhi doonto ayaan ku tala jirnaa haddii alla ka dhigo. waxyaabaha iyo kuwa kala badan ayaa nooga qabsamay qaybta walaal casriyeynta ama adeegsiga aaladda casriga ah. sida ku cad ama sida aanu ka dheehan karno warbixinada ugu dambeeya ee sanad kastaba dhammaadkiisa loo gudbiyo golaha wakiilada shacabkeena, hadba way soo kordhayaan darajada go-aansiinta faylasha ay maxkamaddeenu hayso midan iyo ciqaaba. tusaale ahaan 2011 boqolkiiba 79.71 ayuu go-aansiintu ahaayeen, 2012 way soo kordhay boqolkiiba 82.39 ayay ahayd sida warbixinta ku cad, 2013 boqolkiiba 84.20 ayay ahayd heerka go-aansiintu marka la isku daro madaniga iyo ciqaabta labadaba marka la isku daro inta faylana soo gashay iyo inta fayla go-aan heshay maxkamadaheena deegaanka oo dhan marka la eego ee la isbarbar dhigo boqolkiiba 84.20 bay 2013 ahayd, 14 boqolkiiba 85.37 bay ahayd, 15 boqolkiiba 87.79 bay ahayd, 16 boqolkiiba 89.12 bay ahayd. marka way soo kordhaysay hadba. waxaa noo kabcisay kale aaladaha casriga ah imika aan samaynayno maxkamadaha degmooyinka, maxkamadaha gobolada dhammaantood laptopya loo qaybiyey, gudoomiyaasha iyo gobolada ay isticmaalayaan. waxyaabaha kordhiyey ee kor u qaaday ayay ka mid yihiin. waxyaabaha kordhiyey ee kor u qaaday iyaguna waxaa ka mid ah 2016 2015 2017 maxkamaddeena guud waxay daabacday oo ay turjuntay go-aamada ka soo baxa maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya fadhigeeda dib u eegista loo yaqaano, oo go-aanka fadhigaasi uu gaadho maxkamadaha dalka oo dhan inay raacaan ay waajib tahay. then 15 iyo 17 arrimaha inta badan aanu isleenahay waa lagu kala fikir duwanaadaa ama tafasiraad bay u baahdaan ama macnayn bay u baahdaan, yaa waxaanu u bedelay af Soomaali annagoo soo xulanayna madaniga iyo ciqaabta labadaba annagoo soo xulanayna. waa waxyaabaha markaa kobciye iyaguna in heerka go-aansiinta maxkamaduhu ay kordhaan. waa waxyaabaha kale xilliga hore maxaa ku qornaayeen ma jirin go-aamada oo inta la soo xulo af Soomaali lagu turjumo. 2015 16 17 iyo 18 imika aan ku jirno ayaan hawshaasi samaynay. marka taasi waxay ka saaciday laba qodob muhiim ah labadaba. kow, go-aanka maxkamadda heer federaal shanta garsoor go-aanka ay gaaraan sharcigu wuxuu dhigayaa in maxkamadaha deegaamada oo dhan ay waajib tahay inay raacaan oo hab sharci ay ka soo qaadaan. laba, go-aanka maxkamadda federaalku ay gaadhay falka ku cad waa qasab haddana inuu kasoo noqdo deegaamada iyo maxkamadaha heer federaal. tusaale ahaan tuugo arrin ah baa la xukumay, tuugo ma hadhiso beritoole deegaankii buu kasoo noqonaa. marka isla ficilkii oo kale hadduu soo noqdo iyaga iyo akhristay waa u dhib yaraanaysa marka inay go-aan cadaalad oo cadcadaanaha siiyaan. waa markaas sababta kor u qaada in had iyo jeer aan helno tiro go-aan oo kor u kacda iyadana. qodobada dastuurkiyo qadariya sharciga dimaaciidu leedahay qofka soo bogsoonoowe. qodobada dastuurkiyo qadariya sharciga dimaaciidu leedahay qofka soo bogsoonoowe. xafiiska maxkamadda guud intan isbedelku uu dhacay tiirka koowaad aan qaadanay wuxuu ahaa maxkamaddu in aanay noqonin meel laga durko ama meel laga cabsado ama meel shacabka markay hormarayaan ama markay hor joogaan ama markay u dhow yihiin ay cabsi dareemaan inaanay noqonin baan ugu talagalnay. taa annagoo ka duulayna bilic wanaagsan baanu sameynay oo dadku waddada markay socdaan ay maxkamadda soo eegi karaan oo quruxdeeda iyo bilicdeeda arki karaan. bilicdaasi ka sokow waxaanu sameynay goobo ay dhalinyartu amaba shacabkeenu maadaama waddo weynana hormarayso haddii ay daalaan xilliyada kuleelaha xilliyadaha ay tagaasida sugayaan ay ku hornaysan karaan maxkamadda. taa markii aanu sameynaynay ujeedka ugu muhiimsan ee aanu lahayn waxay ahayd oon fiirinaynay
hadda ka hor isbeddelkan dalka iyo deegaankaba ka dhacay ka hor maxkamadda iyo shacabka xiriirka ka dhexeeya sidoo ahaa isbeddelka ka hor ruuxu inuu maxkamadda isagoon dan ka lahayn ama isagoo dan kale aan ka lahayn oon macaamilo ahayn oo daalan inuu ku hor nasto oo maxkamadda hor fadhiisto dal ahaan iyo deegaan ahaanba waa adkayd marka taa anagu ka duulayna iminka anagu waxaan damacnay oo tiir noo ahaa dadka adeega ee naga raba iyo dadka kale ee adeega naga rabin ee magaalooyinka nagula dhaqan labaduba waa inay maxkamadda saaxiib noqdaan iyagoo sharcigana ixtiraamaya hay-adii dowladdana ixtiraamaya si taan uga dulo goobo quruxsan oo ay ku nastaan goobo cagaaraho ay ku nastaan goobo ay refreshment ku qaadan karaan ayaan xafiiskayga ka dhignay sidaa taas anagu ka duulayna 11 galabnimo ilaa 10 barka galabnimo ilaa fiidkii dhalinyarta xafiiska maxkamadda guud hortiisa kama dhamaadaan taas anagu farxad weyn bayna gelinaysaa maxkamadda kalsooni ay dhalinyarta ku qabtay na gelinaysaa inay gurigooda ka soo baxaan oo xafiiska maxkamadda guud hortiisa intayna ay yiraahdaan kalsooni weyn noo qabtay ugu yaraan waxaa soo kaaya barbar dhigaysaa isbeddelka ka hor iyo isbeddelka kadib xiriirka dhalinyarada ama macaamiisha ama shacabka iyo maxkamadda ka dhexeeyay sidoo ahaa iyo isbeddelkan kadib oo imika aan ku jirno shacabka iyo maxkamadda xiriirka ka dhexeeya ugu yaraan cabsi nagama qaban maxkamadda cidda sharci ku xadgudubta iyada mooyaane laakiin shacabku sidiisa guud cabsi nagama qaban saaxiib bay nala yihiin gaabta way yimaadaan sawir ay ku galaan way u daawasho tagaan taasina waxaa keentay bilicda iyo soo jiidashada maxkamaddu ay u samaysay dadka aan saaxiibada nahay ama shacabka nagula dhaqan deegaanka iyo magaalada inta guud iyagana waxaan casriyeynay oo kale hoolalka amaba hoolalka kulamada ee maxkamadda guud ay leedahay maxkamadda gudaheeda waa inay isku filaato shirar marka ay qabsanayso kulamo marka ay qabsanayso tababar marka ay qabsanayso inkastoo hadba cadadka ka qaybgalayaasha ay ku xidhan tahay laakiin inta badan hay-adda garsoorka iyada waa inay isku filaato marka howlal casriya oo shirarka kooban aan ku qabsanno sida kuwa guddiga maalinta maxkamadda oo kale shirar aan ku qabsanno howlal casriya waanu samaysana howlalka tababarada iyo kulamada kala qaadi kara iyagana casri ah waanu samaysanay environmentiga kale ee shaqaduna dadka macaamiisha noo ah iyo dadka aan macaamiisha noo ahaynba kuwa soo jiidan kara iyadana waanu ka samaynay oo marka waxyaabo wanaagsan way nooga qabsameen waxyaabo wanaagsan oo kalena inaan kusoo biirino oo qorshaha noogu jiraan iyaguna way jiraan kuwa aan soo koobnay waxyaabihii noo qabsamay muddadii isbeddelka aan ku jirnay maahayeen muddooyinka soo socda insha allah maxaan hiigsanaynaa maxaan sii xoojinaynaa arrinta ah iyadana waa halkeeda kow waxaan hiigsanaynaa oo aan rabnaa inaan sii xoojino in adeegsiga aaladda casriga ah aan hoos usii dhaadhicino maxkamadda guud maxkamadda gobolada iyo heer degmo heer daboolka iminka aan marayno ugu yaraan inaan kasii badino haddii alla ka dhigo oo adeegsiga aaladda casriga ah oo kor usii qaado haddii alla ka dhigo waa arrin aan ku magweynahay xarumaha tacliinta sare ama jaamacadaha waddankeena ardayda deegaankeena ah ee culunta sharci kasoo qalin jabinaysa way tiro yaryihiin hada jeer maybe jaamacadda waxaa laga yaabaa sanadkii inay hal qof laba qof oo kasoo baxo haddaan sidaa ku aamusno marka inta noo joogta iminkana aan sidaa ku dayno way sii hoos yaraanaysaa cududda shaqaale ama cududda waxbaratay shuruucda baratay aan helayno way sii tiro yaraanaysaa bani aadamku haddii cid ayna bedelaynin inta ku joogtaa way tiro yaraanaysaa marka taa anagoo ku xisaabtamayna waxaan ku rajo weynahay in cudud shaqaale oo waxbaratay oo da'yara inaan helno taasi oo waxbarashadooda ay ka fargaraynayso dowladda gaar ahaan hay-adda garsoorka tababarka imika way noo dhamaysteen waa qorshaha guud ee waa qorshaha kale qorshaha labaad ee noo yaala hagaag gudoomiye ku-xigeen aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noogu faahfaahisay waxqabadkii iyo guulihii ka dhashay 8 sano u dambeysay dhanka garsoorka deegaanka dhanka tayeenta garsoorayaasha inkasta oo qaybaha bulshooyinka deegaanka intooda badan ay bogaadinayaan natiijooyinkaasi iyo waxqabadkan qaabka aad soo sheegtay haddana meelaha qaarkood hay'adaha garsoorka ama garsoorayaasha qaar tabashooyin ayaa ka jira oo marka howlahaas iyada ah maxaa idinka go-an dhankiina in aad howlahaasi aad si dhaba u eegtaan oo aad tabashooyinkaasi ka jira meelaha qaarkood ama garsoorayaasha hanaanka adeeg bixintiina ku saabsan ee garsoorka in aad wax ka qabataan waad mahadsan tahay weriye laba su-aalood oo muhiim ah ayaad noo raacisay arrintii waxqabadkayga iyo shaqooyinkayga ma xidhiidhay arrinta koowaad ama su-aasha koowaad oo ah tabashooyin ayaa ka jira dhanka adeeg bixinta garsoorka waa sax waa suuragal garsoorku wuxuu ka mid yahay hay-adda dowladda ama dowladda adeega shacabka oo bixinaysa shacabkuna adeega ay garsoorku siinayaan
qasab ma aha 100% inay yidhaahdaan waan ku qanacsannahay tabashooyin waa ay jiri karaan dhaliila waa ay jiri karaan cabashooyin la qaba waa ay jiri karaan garsoorka heerarkooda kala duwan laga qaba waa ay jiri karaan waana soo dhaweynaynaa laakiin waxaa muhiim ah inaan ku xisaabtanno dabciga adeega aan bixinayno haddii anagu aanu garsoornahay dabciga adeega aan bixinayno waxa weeyaan inta badan waxaa isku kaya yimaada laba dhinac badax iyo midig isdacweynaya oo is haysta hal shayna uu ka dhexeeyo san hore uu soo sheegay halkaa shay labadii ruux ma qaybsamayo marka nidaamka sharciga ee maxkamadaha iyo hay-adda garsoorka u yaala loo yimaado halka shay ay isku haystaan mid u qaybsamaya maaha labadooda dhinac oo ay ku wada qancayaan waxaa ku qasbanaya marka anagu in halkii shay iyo cadaymihii ay dhinacyadu wateen iyo doodihii ay dhinacyadu keensadeen anagoo miisaamayna in la yidhaahdo ama dhinaca ba abaale ama dhinaca ta abaale marka labada dhinac la yidhaahdo dhinacaasaa leh kan la yidhi wuu leeyahay waxaa laga yaabaa inta badan inaanu isagu hadal oo uu aaminsan yahay dabcan de waana sidii dabciguba uu yahay oo uu aaminsan yahay cadaymihiisii iyo shaqadiisii iyo howlihiisii keliya inuu ku yeeshay waana sida sharcigu yahay kii laga yeeshay marka ama laga xukumay isagoo xaq buu leeyahay inuu yidhaahdo go-aankaa kuma aanan qancin inta badanna way dhacdaa oo la garay laba dee qof kama wada qosisay soomaalideena ku mahmahdaaba marka cabashooyinka iyagu haddii ay yihiin kuwo garsoorkaas waxaa go-aamiyey ciddaasu ka go-aamiyey ciddaasu u go-aamiyey haddii la leeyahay anagu waanu soo dhaweynaynaa cabashooyinka iyo tabashada lanaga qabo laakiin waxaa muhiimka ah inaan u gudagalla loo baahan yahay waxa weeye go-aanku garsoorku markii uu gaadhiyey muxuu ku saleeyey arrintaa go-aanka markii uu ka gaadhay caddayntaa inuu ku saleeyo sax ma ahayd mise ma aha ciddan uu u gaadhay caddayn kan laga go-aamiyey ka mugweyn ama ka miisan culus ma haystay mise ma aha in loo ogaado ayaa muhiima si guud marka iyagoo cabashooyinkaasi ay jiraan shacabkanaga waxaanu ku boorinaynaa waana ka codsanaynaa waxay cabasho ah ee annaga lanaga qabo had iyo jeer waan soo dhaweynaynaa laakiin waa inay wax qotoma oo caddaynaha noqoto ee waa inayna noqonin ninkaasi hebel intaasuusan u haystay waa laga xukumay keliya waa inay noqonin waa in la yidhaahdo caddayntaasoo haystay maragyadaasoo keensaday kana ka caddayn roonaa laakiin waa laga xukumay naqanciya waa in la yidhahdo marka ama waa in la yidhaahdo garsoorahaasaasaa sameeyey eexdaa sameeyey waxaa kale sameeyey ficilkaa ku kacay caddayntaasaan haynaa ka tallaaba kadib waa waajibna saaran in marka tallaabadii kale sixitaan ahaa aan qaadna haddii alla ka dhaw marka hay-adda garsoorka labada qodob aan korka kusoo sheegayba waa laba qodob oo culays oo na saaran kow laba dhinac baan u garnaqaynaa mid wuu guulaysan midna wuu guuldaraysan ka guuldaraysta waa cabanaya laba sawirka guud ee dadku ay bannaanka ku haystaan iyo waxa galka ku jira inta badan way kala duwanaan karaan arrimahaas waa culayskana saaran iyadoo taasi jirta laakiin cabasho kasta oo lanaga qabo heer deegaan heer gobol heer degmo cabasho kasta oo naga qabo cid kasta oo naga qabto waan soo dhaweynaynaa xafiiskaygu wuu furan yahay had jeer inaan jawaab ka bixinaana weliba waa mas-uuliyadna saaran weeyaan excellent waa arrin muhiima oo muhiima haddii degme laga qabo cabasho oo garsoorka degmada laga qabo guddoomiyihii degmada ayaa ugu dhow oo guddoomiyaha maxkamadda degmada ayaa ugu dhow waa in cabashada loo geeyo waqti koobanna waa inuu siiyo cabashada inuu jawaab ka bixiyo waqti kooban hadduu cabashada jawaab kaga bixin waayo jawaab cabashada oo loo geeyey guddoomiyaha maxkamadda degmada oo xilligaa loo geeyay oo jawaab ka bixin waayo gobolkay soo mari gobolka markay soo marto heer deegaan way soo mari heer deegaan iyo gobolka isku mid weliba isku xilli way u iman kartaa xataa dadku waxaanu u suuro gelinay inkastoo jaranjarooyinka kala sarsareeyaan cabashada degmada gaadhay haddii xal laga waayo oo xalkaa cabashada cidda ku xigtay ee loo gudbin karaa ay tahay heer deegaan iyadoo ay ahayd nidaamka marka structureka iyo qaabka istabaolka iyadoo ay ahayd marka degmada laga yimaado in gobol loo yimaado laakiin ruuxu hadduu awoodayo oon keliya inuu heer deegaan u gudbiyo gobolka inaan ku celina maaha cabashadiisa waan aqbalayna anagu noo soo gudbisana degmadaasaan cabasho u gudbiyey jawaab bay ka bixin waayeen gobolkiina fursad aan ku gaadhan waan waaye ama gobolkii xil sabab aan ugu gudbiyaan waaye dan idinkaan idin helay markuu na yidhaahdo horta gobolka soo mar annaga ka dambeeya inaan idhahno maaha annaga xafiiskaygu furan yahay maadaama cabasho tahay annagu haddaan doonno aan u gudbino gobolkii oon idhaahno arrintaa eega oo baara jawaab degdegana ka soo bixiya aan idhaahna laakiin xafiiskayga waa loo iman karaa marka cid kastoo cabasho qaban kartaa degmada way ku horreyn kartaa gobolka way ku xejisiin kartaa ma ahayd degmada markay ku horeyso xataa gobolka haddii fursad u weydo annaga way noo iman kartaa xafiiska herteegaan marka saddexda darajo isdabalyoolka midkii ay doonaan had iyo jeer cabashadoodu haddii ay tahay wax la taaban karo qol walba diyaar buu yahay cid kastoo fadhidana waa waajib saaran in cabashada aqbasho cidda
inay ka jawaabto xilliga ay tahay oo u gudbiso ama inay iyada jawaab ka bixisanto marka heer deegaan waa la iman karaa heer degmo waa la tegi karaa heer gobol waa la tegi karaa heer maamul magaalana cabashada waa loo gudbisan karaa had iyo jeer xad uma yeelayno cidda cabashada loo gudbinayo hagaag dhanka kale dhanka adeeg bixintiina garsoorka maxkamadda guud ama gobolladii ha ahaato ama degmooyin ha ahaato waxaa jira iyaduna cabashooyin kala duwan oo dadka qaar ay soo jeedeen dhanka qoysaska oo kale waxyaaba kala duwan oo dhanka qoyska laisku haystaa nin iyo maaragtay xaaskiisii dad wada dhashay oo ehel iyo qaraabo ah hanti baa laisku haysan karaa marka howlahaas oo kale maxkamadda guud go-aanada noocaas oo kale qaabkee tabashooyinka ka jira aada u xalisaan awood garsoorkiinu intuu gaarsiisan yahay waxaa jira arrimo qoysaska dhexmara dhaxalka ah hanti la isku haysto wiil iyo aabihii ama wiil iyo waalidkii baan idhaahdo hooye iyo aaba midkay doonaan ba ha noqdaan ama arrin qoys oo dhexmarta waa run oo jirta oo maxkamadaheena iyo kuwa dalka labadaba dad ehelahoo isku dhow hanti way isku dacweeyaan kuwana soo maraya go-aan helay oo dhammaystay oo go-aamada ku qancay way jiraan kuwa iyagu gaar u heshiiya way jiraan kuwa socda iminka way jiraan kuwa go-aamadii asalka ahay dhammaadeen oo fulintooda socdaa way jiraan arrimahaas annaga waxyaabaha naga hoseeya wiilka iyo waalidkiisa ama qoyska isdacweynaya labada dhinac ee bidix iyo midig kale ah anaga macamil bay noo yihiin way noo siman yihiin go-aanka marka aan qaadayno geedi socodka marka aan marinayno laakiin inaan ku salayno ma aha xiriirka iyaga ka dhexeeya kee waalid loo yahay kee waalid ah inaan ku salayno maaha haddii ay ka fursan waayaan oo iyagu bannaanka arrintooda ku dhammayn waayaan oo ay maxkamad isla yimaadaan keliya waa inaan ku salayno iyagoo waalidnimadooda iyo walaalnimadooda ay halkooda tahay haddana keliya waa inaan ku salayno arrintan ay wataan maxay ku salaynayaan kan andacoonaya muxuu ku salaynayaa kan laga andacoonayana muxuu ku salaynaya ma heshiis bay kala galeen oo hadda ka hor u yaalay kow heshiis hadday kala garan heshiiskaasi muxuu lahaa laba waajibaadkii heshiisyadaa ku caddaa labada dhinac midkee ka soo bixi waayey ma kan la dacweeyaa ka soo bixi waayey mise kan la dacweynayaa ka soo bixi waayey kan la dacweynaya hadduu heshiiska ka soo bixi waayey waajibaadkiisa siduu uga soo bixi karaa waa inaan eegno keliya iyagoo walaalo ama waalid ay isku ahaan karaan go-aamada degdeg ah waa inaan gaadhno annagoon ku salaynaynin xilli ka dhexeeya iyaga tallaabada xigta lagu soxi karo inay racfaan qaataan oo aan u ixtiraamno weeyaan inta racfaanka ay qaadanayaan ama inta ay dacwadoodaasi socoto hal maalin uun haddii maadaama arrimo qoys yihiin sidaad ka dhawaajay ama arrimo dad isku dhow oo inay kala fogaadaan aan ahayn u dhaxaysa maadaama tahay hal maalin uun haddii ay kusoo dhalato inay arrintooda bannaanka ku eegtaan oo yidhaahdaan noo hakiya maxkamadda dacwaddeed ama nagaba joojiya annagaa soo heshinayna annagu waana soo dhaweynaynaa xeerkuna wuu ogol yahay xaqna waa u leeyihi haddii labada dhinac laakiin intay isla baxaan ama ay soo heshin waayaan ama heshiiskii ay isku afgaran waayaan oo ay maxkamadda isula laabtaan maxkamaddu marka ay iyaga u garqaadayso inay eegta ma aha xiriirka ka dhexeeya kee daaweyn kee daayar kee waalid ah kee waalid loo yahay inay eegto ma aha waa inay eegto keliya kana dacwoonaya kanu dacweynaya muxuu ku dacwoonaya kanise maxaa lagu dacweynaya kan dacwoonaya maxaa caddayn u wataa kanise muxuu caddayn wataa arrinta ah keliya inaan fiirina weeyaan marka qaar galalka arrimaha dadka isku dhow ee ehelada ah aan hayno kasoo dhexbaxa waxa weeyaan dooda annagoo aan hayno arrin aan ahayn inay bannaanka dadku ka sheegtaan baa laga yaabaa tusaale ahaan waxaa jiri kartaa in laba ruux ay kala karaystaan ama gaadhi ama gaadiid kale ay kala karaystaan then maxkamadda markay dhex joogaan ay isku hayaan cadadka kiradaasi waa intaasoo way ugu yaryahay ha biiriyo iyo cadadka kirado ma ahay iguma badnayn intaa aan bixiyo ama cadadka kirada inaan bixiyo ma ahay inay bilaash ku haystay lahayd nuxurka iyadoo la isku haysta laga yaaba bannaanka in laga yidhaahdo waa waxaygii inay igu wareejiyaan rabaa heshiiskii waan ka laabanay waa waxaygii heshiiskii waan ka laabanay dacwada annagoo aan hayno maaha annagoo dooda inta badan aan hayno waxa weeyaan arrimaha noocaasa kiradana igu yara ha biiriyo oo inay u kordhiyaan rabaa iyo ma ahe ma biirin karo awooddaasaan leeyahay ma biirin karaa ma awooddaasuu leeyahay kiradana ma yar tahay mise ma yara uun keliya anna waa inaan kaa gar naqno dacwada meesha ma taalo bannaanka dadka marka u baxaan ama warbaahinaya marka u baxaanna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa ilmahaygii ama waa walaalkay hanti bay iga haystaa hala iiga wareejiyo ereyga hala iiga wareejiyo laakiin galkan annagoo aan hayno kuma dhex jirto ee waxaa ku dhex jira kiradaa igu yara ha ii biiriyo oo ha la soo qiimeeyo tusaale ahaan hantida lamidka ah ee la kirada waa nin su-aal macquula
halala eego dan hala biiriyo inay ku dhex jirtaa laga yaabo marka cabashooyinka inta badanna lidka ah waxa weeyaan labadii qodob ee hore aan kuu sheegay iyo tan ah arrin aanaan hayn oo bannaanka dadku ay ka sheegtaan sidee doontaba ha noqoto waalid iyo walaal iyo qof kasta oo naga cabanaya xaq buu u leeyahay had iyo jeer xafiiskayga inuu yimaado cabashana noogu geysto weliba waa waajibna saaran inaan jawaab saxa ka bixino intaas waxaa nagaga dhan barnaamijkeenii sida kooban aan ugu soo qaadanay dib u habeynta lagu sameeyey maxkamadda guud iyo hay-adaha garsoorka dowladdeegaanka soomaalida waa naga intaasi waa soo diyaarintii barnaamijkan maxamed cabdi cali dhanka habeyntu waa nimcaan gaase akhyaaray hadduu ebeydno tan iyo intaan barnaamij kale aan hawada ku kulmi doono sidaas iyo amaano allah